Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada janaalka Barca 252. Barcelona ayaa shaacisay liiska 19 xidig ee kala hortagayso kooxda kubadda cagta Sevilla. Laba xidig oo muhiim ah ayaa ku soo laabtay kooxda. Jordi Alba iyo Ansu Fati ayaa ka mid ah liiska 19 xidig ee Ernesto Valverde oo soo xushay kulanka adag ee Sevilla, iyadoo Alba la filayo inuu ku soo bilaado kulankan, halka Ansu Fati kursiga keedka ku soo bilaaban doono ciyaarta caawa. Waxaa weli Barcelona dhaawac uga maqan Junior Firpo iyo Samuel Umtiti, halka Salman Rajab uu ganax ku sheegayo kadib casaankii uu qaatay kulankii u dambeeyay. Messi ayaa la filayaa inuu kulanka caawa dhanka weerarka ka garab ciyaaro Antoine Griezmann, oo la sheegay inuusan xiriir fiican kala dhexeynin iyo ninka sida weyn iskugu dhow yihiin Luis Suarez. Barcelona ayaa 5 dhibcood ka dambeysa Real Madrid oo hoggaanka liiga ku heysa 18 dhibcood. Liiska xidigaha Barcelona ee kulanka Sevilla: Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Busquets, Todibo, Arthur Melo, Luis Suarez, Messi, Dembele, Neto, Griezmann, Jordi Alba, Roberto, De Jong, Vidal, Carlos Perez, Ansu Fati. Kulanka xiisaha badan ee Barcelona iyo Sevilla waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Camp Nou Stadium. Waxaa la daawan doonaa caawa 4 saac oo habeenimo xilliga Geeska Afrika. Janaalka Barca 252 fadlan rukumo janaalka haddaa ku cusub tahay. Intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.